dhowr goor baanu halkan aanu idinku nimi lacagta ugu badan lacag xoog leh ayaa kaga qayb qaadateen cisbitaalka maanta dadka guryaha dawada ugu geynaya arkayseen raggii juhdiga iyo dadaalka geliyay Mustafa halka daba fadhiyo aad aan wada taraafali jiray waagii aan lacagta ururin jiray uu jooga Axmed uu jooga hablihii iyo raggii oo dhan uu jooga runtii laf dhawr ba u ahaydeen ururkii taf maartay cisbitaalka dhimirka burco dhisay runtii waan idinka raagnay waan idinka raali galeynaa taas waa deeska Soomaaliland waynu nahay dabcan trafficna waana helay marka inta raali ma naga hanaysa laakiin dad badan baa ku soo xaadirteen waanu idinka mahadnaqaynaa halkan waxaan ku maraynaa rag fara badan oo laba magaalo ka kala socda oo ka yimi Cardiff iyo Sheffield waxaan u soconaa ilaa hadal waliba wuxuu leeyahay mixwar Soomaha iyo nuxur buu leeyahay waxaan u soconaa waxa weeye dadka daawanaysa hadalkii oo dheer dadka in loo kaco oo aan hadli karayn oo aan caafimaad haysan oo aan xanaano haysan oo nafteena iyo ehelkeena iyo dadkeena hadalku intaas ku eegay dadkaan u soconaa u tarafalayna nimankaas ay uga soo kacitay ilaa Cardiff maanta halka u marayaan reerahoodii iyo shaqadoodii iyo danahoodii uga yimaadeen anaguna aanu Sheffield uga nimi waxa weeye wax kala maahay waa dadkaas sida inuu gargaar lahaa ilaahayna wuxuu markaas u gargaartaan ayaa idin gargaaraya hadalku waa intaas weeye maanta laba arrimood ayaanu u soconay kow magaaladii Liverpool ee khayrka jeclayd ee maxaa la yiraahdaa ay ka qayb qaadan jirtay samafalka iyo horumarka iyo dib u dhiska dalkeeni in aan horta warkii gaarsiino oo aanu hawsha halkan marinayno iyo nidaamka aanu wadno iyo wax dhan aanu idin gaarsiino taas waa mid talabaad qalab ayaanu idin sidnaa leafladale caagadii dukaamada la dhigayay leh organization kana in aad meesha magaalada joogtaan ka hirgelisaan oo dukaamada kuwa islaamka oo dhan dhigtaan ilaa guryaha ilaa xaafadaha dhigtaan caagadii waanu idin sidnaa waa kuwaas dukaanka dhigaysaan waxaan doonaynaa in dad nagala wareega oo hawsha aanu kaga tagno aad noo samaysaan oo magaalada ah oo aanu xiriir yeelano oo nala shaqeeya ururka iyo maxaa la yahay Somaliland Mental Health Board waa urur sharciyeysan oo dalka ka sharciyeysan charity number buu leeyahay waa urur register wax warware ma jiraan ID card iyo maxaa la yahay qof kasta oo ka shaqeeya si legal uga shaqeyn kara cid kugu qabsan kartaana ma jirto inaan taas ka xariiqna waa very important waa dadka qaar baranaya dil lacag la iska urursado bilaaba aad baran kale imaarad marka ururku waa ururka registerka legalka laga shaqeynayo dadkeena iyo dadkeena wax ugu qabanayno taan doonayna waa taas waan ogahay dad ka mid ah inaad tagaysaan oo meel qabanaysan hadalka dheereeyay ma doonayo iyadoo hadalku dee uu marba soo tarayo oo maartay xaaladda ay dadkaasi ku jiraan waad arkaysaan lugu go'go'een oo maalintii aad arkayseen inankii ka soo duubay burco waad aragtay ninkii sida loogu gurmaday kuwaas oo midhan baa jiro oo meel ba joogo in halka TV-ga ay filimkii ka daawanayeen ninkii adinku go'anaayay ninkii adinku bararayay iyo inankii xanuunsanayay kii indhaal ah wuxuu kuma kala duwanaa kamaradu ma la dulgeyn wanaga soo sawiray dadka inuu baahnay inuu kacno wadka noocaas kuwaas ayaa ilaahay inoogu naxariisanaya kuwaas ubadkeena iyo maxaa la yiraahdaa iyo maartay guryaheena bad galayso oo ilaahay fi aakhirada inoogu naxariisanaya gudoomiyaha Naasir ayaan kelmad siinaya ayaan siin doonaa insha Allah بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورتو مانتا وحويا وإيشرف أنيقو ويمد ولا الله ريال ليفربول أرنتن خيرجا إن ندي سو بندقنا وركن هذان ير تاريخ دي سيد كسيو وركن وحنا قبلوني 2000 سنة كونيو 2011 كيف أنا قبلوني مقالة كارديف بشي أبريل وأنا قبلوني إنه شان جني أنا تكاسليش كورولنا أفضل سنة مكسو ودني وانو شافيل بان لو سو خريني بيمكان بان لو خريني كل با ستيب ان لندن الحمد لله ما تكون عاقدودو نوعاسي كدواد وينو يالان انجليزka shantii gani waxay ku guuleystay maanta dhakhtarkii Hargeysa 85 kun bil baynu ku dhisnay intii ugu dambeysay ka dhinayd in yaro kale maanta looga soo dhibay Sheffield alxamdulillah inaanu wax qabsan karno horto ummad wax qabsan karteenuna alxamdulillah reer Liverpool iyo reer Sheffield iyo reer dadkeenu TV-ga inta waa ka bixisan waan ognahay laakiin waxaan u baahanahay Ingiriiska wuxuu leeyahay ku horto moodina waxaan ha oranay moodina dawladdeenu dadkan dayacday dawladdeenu waa dawlad faqiira Ingiriiska 150 kun oo charity u leeyahay Ingiriisku charity isagoo wadanka lixaad adduunka ugu qanisan la budda maanta inaguna charity yeelano waxa weeyaan hadaba hadii aynu wax wada qabsano wax badan aynu qaban karnaa idinku soo dheereen maayo alxamdulillah imaka dhakhtarkii burco
in dhakhtar Norway ay la hadlaayay shalayto online ku train garaya mid kale oo Sweden ay la hadlaayay mid baa Canada ka tagay marka dawooyinkii oo dhan igu soo waanu sidaa in anaku xagga wadanka macayma Welshka in gaaladii si fiican baan u dhaxgalnay in nabka waxayna siiyeen xitaa 5000 ay dadka training ku bixiya familiyada iyo waxan in dhakhtaradii xitaa annagii xitaa training na siiyeen idinka saasay lagmada ka rabnaa kun cadaanka gaarsiiya dadka gaarsiiya ingiriiska baa la joogtaan lacagta lahaa waa naga lacag badan Welshka kun masjid baa ku yaala ingiriiska kun ka masjid ummad kasta qaybteeda qaadata ilaa inaka mooyaane inaku waynu ku ridnaa haddaba anaku maanta waxaan idinku nimid haddii magaalada Sheffield 3-4 qof ayaa markii hore naga raacay markii dambe way bateen Bristol laba naga raacay way bateen hadda maanta 3-4 qof oo idin kamid ah hadii fikradda qaadataan magaaladaas bishii ugu yaraan waxa ka soo hooyin doontaan wallahi inaan been idin sheegin inaan reer Burca aan reer Geesan la isbarta fiican inaan reer Burca ayaa waxa ka soo hadlay magaalada Leeds la yiraahdo ima garanayo leaflet ka soo helay Leeds dadkeena ma cidda joogta in yar ويرنيو waxaan arkay baashaasan arkay caranka muurka satin haaba wuxuu cagad hay soo tir Bengalidii iyo Tegaweydii Kurdishkii ay ku tahay inigaas yeesinu misal cagad soo tira iyagu hoos yimaada la shaqeeya dhowr boqol gaar waa nin qura kalidii 7 carruur leeyahay 7 carruur ayuu leeyahay ka war markaas waxaan idin samayn doonaa ID-daas oo kale idin samayn doonaa insha Allah hadii Ilaahay raado in dumar yar oo loo baahan yahay in isqora in kan daarif dhibid kaana 5 gini qof walba qofkii shaqeeyo 5 gini isqora walaalayaal baa walaal insha Allah ku dhibid doonaa hadii Ilaahay raado qaadan doontaa in halkan waxa samaysan doontaan kalkii taksiga gaariga kaga imid raaliga hada kaarkii ID kaarkii waa kaaro kowdi ID kaarkii waan idin samayn doonaa hadii Ilaahay raado in maxay haydeen waxaanu idin haynaayo kale hadii Ilaahay raado in cagadaha waan idin keeni doonaa kuwa waan idin keeni doonaa idinku meel baabeledin centra tan oo kale oo saalo taagay waan idin keeni doonaa hadii Ilaahay raado waxaan idinku doonaa inaan sameystaan gudoomiyihii ku xigeenkii ururka hadaan ururku madax yeelan Maxamed Socdaan marka walaalayaal idinku waa tigisan imaka iska tawakkala laakiin hablihiinan inteeda naga tagin hadaan nala shaqeynaysan walaal insha Allah gacanta taaga please waa ilaahay khayraydii walaal insha Allah barka alxamdulillah waxyaabaha walaal insha Allah wallahi waxyaabaha afartaas sano aan ku wadi ina maan ka daawaday TV-ga anigu dumarba waxa soo duubay dumar baan ku kacnay deetana inantu waxay tiri way bogsatay deetana waxay tiri video iska duubtay waxay tiri mar kasta bay tiri markan shaqeysto dadka baahay in wax siyaabay tiri walaalayaal waxaan idin leeyahay dadkiina qurbaha joogo ha naga daalina markaana ha ka daalina laakiin walaal waa adag tahay it's very hard job soo fahmin ha ka daalina laakiin waa khayr waa ka baxay walaalo waa tagi kartaan idinku sida sharafta leh milgaal inoo soo dhaweyseen aad baad u mahadnaqaynaa waxaan intaa idin raacinayaa hawshan runtii hawl yar maaha runtii hawl yar maaha waa hawl dhib badan isla markaana dhib yar haddii aad u hagar baxdo waa wax aad u dhib yar weeye waxay kaa qaadanaysaa waa wax yar oo kooban laakiin maxay kugu dhib yaraanaysaa waxay kugu dhib yaraanaysaa walaalow markaad niyaddeedii iyo daacadnimadeeda keento hawshan iyadaa imika annagu Sheffield waan ka wadnay intan gaadhigay ku ritay anigayga kula hadlaya inta caagadii qaatay baan gaadhigay ku ritay marba tukaaman hortegay tukaankii baan weysan bifadlaka Allah khaliig ma dhigan karaa haya dhigo waan dhigtaa tukaankii baan ماشي مع ذرة حوالين الصومالية هاي وانديكا ماشي مسلم ليه وانديكا هاوش مقالدي وانو انتي مركا لو بدو وانو دغني مركا ان مدة قاعدة من ياسينو ور ياسينو خالي ان كانوا بد ماشي تغنيو انو قعنت سو مرني انت مكشيش وين قادنو ام عاقد قادنو يعني قادنو وان كو شبانا هذا ما حان يدي هينا انو هيسنا انو
mashiinkii tiranayay maxayda lacagta ee qadadicda noo tiranayay waanu haysanaa may inuu iska leenahay inuu iska leenahay kaas lacag ka goosanaya mid aan waxba ka goosanayn oo halkan ku yaala oo saacada rabtaba oo waqti rabtaba ayaan ku haynaa oo waqti waxba naga qaadanin inta mid leedii keeniyo aad leedahay midna waan rabnaa runtii meeshan waa la isku abtirsanaya nimankan reer wales waan iska xignay anagu waxaana inteen reer ingiriisku baladi ha inta England iyo maxay Manchester Bolton maxay inteen inaan cudusku noqono oo aynu tusno inaan ku xoog badan nahay ka dhaqaale badan nahay ma garad anagu maanta ma labaadkii aan lacageyna weey farka ma qodno liba hada waxa weey walaalayaal hawshan iyada ah aan guntiga dheesha ka dhigano aynu xilkeeda qaadno saddex wad helaysaa ku xagga ilaahay khayr baad helaysaa magacaad helaysaa mujtamacaagii ixtiraam baad helaysaa magacaad helaysaa nin walaalkaaya oo xanuunsanaya baa talabadaad qaaday duweynaysaa talabadaad qaaday adigu ee ayrad qaaday nin walaalkaayo jooga la sacaanood aba ceergaaba jooga aba boorma jooga bay daweynaysaa tiilaana ku raacday hawl noo dhex lama kala laha waanu wada leenahay saasay noo balana aad u mahadsan aad iyo aad ba u mahadsan tihiin xafladda sharafta leh aan ugu soo dhaweyseen mahad Allah u sugnaatay dhamaanteed idinkuna waa mudan tihiin waxa aynu ka hadalay ama walaaladeen inoo sheegeen meel kastaanu ka nimiba waxaanu isugu nimi inaan isu gurmano ilaahay wuxuu yiri saarcu maghfiratan wa jannatan arduha samawati wal ardi waru kala dheereeyo ku beretama jannooyin cirkiyo dhulku intiisu jiraan ka waaweyn yaani maanta wax kasta aynu isa siino oo aynu isu yar dhiibdhimana ama qada aynu isu qaadno waxa ka haboon oo kaba sii weynba dadka aan waxba ku weydiisan karaynin wixii lagu daryeeli lahaa oo aynu isaga gurmano oo jirkeena wax uga jarno waxa weeye liibaanta ku jirta dhowr bay noqonaysaa anigu kala halkan ka bilaabay halkaas way noqonaysaa waxay noqonaysaa marka ugu horeysa naftaadii iyo caruurtaadii iyo reerkaagii baa ku safe garoobaya oo ilaahay balaayo kaaga xijaabaya mar labaadka jannadaas aad ka qayb galaysaa dadka ugu dheereeyay waliba ka noqonaysa because kuwa ilaahay uu xilkii ka qaaday xilkii ilaahay ka qaaday yaani waxa qiyaastu noqonaysaa ninkan marka uu dhimar ku dhacay ama qofkan dhimar ku dhacay rag uu dumar ku doono ha noqday wax xisaabaho lagu leeyahay qalkii baa laga rafacay jannada free buu ku gelayaa bila xisaab buu ku gelayaa because waa laga rafacay qalinkii qalin wax ka qoraya ma jiro ka markaad u gurmato ilaahay dartii ugu gurmato de qiyaasta ilaahay wuxuu ku yiri man yad'u Allah man yurqi Allah qirdan hasana fayudaa'ifahu yani marka ilaahay wuxuu ku sheegay waxaad bixiso markuu ku laban laabo de laban laabka ilaahay intuu noqon kara yani ifkaabaad ka dhergeysaa adiga aan aakhiraba gaarin waxa weeye sidan kale la idinku sheegay soo wixii aad la gaarsiin kartaan gaarsiiya idinkuna qof waliba ha ka gurmado kelmad xataa hadaad u tiraahdo haddaad lugu qaado haddaad dukaan u tagto haddaad masaajid u tagto oo inaad qofka u shaqayso adigu marba ajar baad debel baad helaysaa marka runtii waxaan leeyahay reer Liverpool hadda naga aragtaan shaashadaha guryaha aad joogtaan u diyaar garooba inaad jannada ka qayb gashaan reer Sheffield laftooda waxaan leeyahay waxa la inaga doonayay $10,000 gini baa la inaga doonayay waxaynu bixinay maanta 3,500 waa reer Sheffield haddii ilaahay ka dhigayo waxaynu isugu imaynaa shirar insha Allah lacagtii inoo harsanayd saynu isaga bixin lahayn ilaa bisha xigta ha loo diyaar garoobo reer Liverpoolna waa beretamaynaa dee diyaar garoobo caagadii baanu haynaa ciddii nagala wareegsan doonay inay halkaas soo istaagaan aynu goobjoog wada ahaano dabeedna aynu saa ku kala faataxaysano odayaasheeduna ay markaa hadalkeedii ka dambeeyaan insha Allah markaa sabaax iyo maxaa la yiraahdaa farduus iyo luul iyo soo istaaga halka kulligii hay xagga soo istaag السلام عليكم ورحمة الله وبركاته horta aad baan idin wada salaamayaa reer Liverpool iyo dadkan martida inoo yimid horta martida aad iyo aad bay u mahadsan yihiin say sharafta leh noo soo sharfeen runtii maaragtay programkan aanan horeba u haysan anagu horeba aanan war uga qabin aad noogu keenteen runtii waa program aad wax ool ku ah
waddankeena iyo dadkeena runtii wallahi wax laga ooyo weeyaan maanta aad iyo aad marka anigu kolley waan idinla garab taaganay wixii hiil iyo hooya intaan magaalada joogo insha allah biidnillaahi kariim waanaan idinka guddoonnay khayrna allah idin siiyo welcome soo dhawaada mar kasta midda ugu horeysa waa mahadsantihiin aad iyo aad iyo aad jazaa'igeedana ilaahay idinka siiyo idinkuna waa mahadsantihiin rag iyo dumar intiinan timi aniga war yar baan idinku kordhinayaa anigu aad iyo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay ama lagu wada faraxsan yahay sida aan garan karo xaaladda aa wadaan anigayganu haddaan cali ahay barnaamijka barogramka waqti dheer baan soo waday niman baa jira halka jooga oo ama rag iyo dumarba ka soo qayb galay arrinta aan waday project aan waday oo ku saabsanayd 3 xaalo baa Somaliland loogu baahan yahay biyaha tacliinta iyo caafimaadka ha u sii bateen magaalooyinka yaryar dibadaha ka jooga sida raashigeed meel balidhig la yiraahdo waa ka wada war haysaan ayaa guddi aan isugu nimaano nidhi walaalkaasaa bare ah ha laga qodo riiga aniga projectgana keenay dadkana dhex dhigay dad badan oo hawshii waxay gala qabteen halkan way fadhiyaan rag iyo dumarba lacagtii waxaan hayaa waxaan u tagay presidentka iyo president ku-xigeenka iyo dawladda niman badan baan ku kulanay Hargeysa aniga oo wada in arrinta hore loo mariyo arrintii iminka waxa ku qabatay gacanta dawladdii balidhig baa laga qoday riig nasiib xumada waxay tahay 3 jeer buu jabay biyuhuna waxay jiraan 450 mitir inaa ka war haysaan iyo in kale mooye 3 jeer uu jabay mar walba alaabtiisa wax laga doonaa ama China ama dibadda 2 bilood bay maqnaataa bishii ramadaantiina dhaafayna ramadaan bay ahayd waxa la yiraahdaa taabanina alkhulaasa lacagtii aan markaa isu keenay aan iminka hayaa haddaan cali ahay 11,000 oo geni konton baa ka dhiman dadkayga 4 caruuray baan leeyahay oo qof waliba konton buu bixiyaa bishii lacagta badideeda reerkaygay ka wada timi soo lama socotaan tan aawadaana markii ay dawladdu yiraahdeen annaga qodayna ceelkiina waxa ay noqotay labadii xaale ee soo haray midna tacliinta ahayd midna caafimaadka ahayd ka aynu saarno wajiga xaalkii wuxuu noqday caafimaadkii waxaan markaa soo jeediyay oo dadka dhex keenay in aan soo sameeyo cusbatal dadka maskaxda ka buka lagu ururiyo oo balidhiga cusbatalkaasi wuxuu noqonayaa 4 room oo dumarku leeyihiin iyo 4 room oo raggu leeyihiin iyo 2 room oo dadka ka shaqeynaya ay leeyihiin sida aan ku camal jira haddii ilaahay ila qabto dadkuna ay ila qabtaan waxaan rajaynayaa inay sidaas dhacdo laakiin waxa ku wada xiran tahay horta biyahanu inay hirgalaan taasi waa caynkaas waa war aan idinku kordhiyay dadkana ay badidiisu ay wada og tahay bismillaahi raxmaani raxiim horta marka hore waa mahadsantihiin dhammaan sida wanaagsan uga soo qayb gasheen raallihaada runtii waan idinka raagnay oo danan meel dheer baanu ka nimi waxaan idinku kordhinayaa anu waxaan ahaa qolooyinkii tagay Hargeysa markii ugu dambeysay marka dhakhtarkan imaka socda qoladii soo dhaxartay baan ahaa wasiirka laga dhaxargayay waxaan ku kordhinay Hargeysa oo nu geynay China waxaan ka keenay caagado kuwaasoo kale oo ka yar waaweyn oo lacagtuna ka dhex muuqato marka konton midho tijaabo ay ahaayeen konta kimid 25,000 wax ka soo baxa $1,200 ba ka soo baxay marka waxa muhiim ah dadkeena inaynu barno sida wax loo urursado 500 baa lagu ridaa 1,000 baa lagu ridaa dukaamada farmasiida meelahaas aan dhugnay waxaan ku tala jirnaa hadda aanu diraynaa $10,000 baan diraynaa China aanu diraynaa Burco Boorama gobol kasta oo Soomaaliland ayaanu dhigaynaa Hargeysa xafiiska waanu ka furnay inama volunteers oo jaamacadda ka shaqeeya ayaa ka shaqeeya Burcana waanu ka furaynaa qorshaheena imaka kan ku xiga waa Laascaanood 6 gobol ee ugu waaweyn marka ugu horeysa inaynu ka samayno dhakhtaradii meelihii emergency-ga waxa muhiim ah qofka dadku ma inaanu jeel magnuuneenu samaysano ma dhakhtarka Hargeysaan galay horta dhakhtarka Burco ugu fiican qoladii ka qayb qaadatay ilaahay khayr ka siiyo wax wanaagsan baa qabateen qolada reer Boorama Burco waxay ka qaataan Burco sida u shaqeyso systemka u shaqeyso ayay ka qaataan dabeetana dalad imika waxaanu sameynay ilaa Sweden ilaa Mareykan meel kasta waan isku soo xidhnay
dalada Soomaal kan baanu hoos yimaadaa qolo walibana iyada meeshada maamusha account baynu hargeysana ku leenahay halkana ku leenahay halkaas baan lagu soo wada shubaa waxaynu ku qabanana gudidina halka ka shaqeysa iyo gudi kasta oo UK joogta meel bay isku iimaysaa qorshe la wada sameynaya dadana waxaan anagu gaar u leenahay jeebada ku sidana maaha waa waxay naga wada dhaxeeya waxa filayaa mala qolooyinkeena inoogu waaweyn waxa xasuustaan inagoo ninka waalan dhagaxa ku tuurna oonu waalidkuna ka qabanin daba maanta rajay leeyihiin dadkii walwala hadayba hayaan cid u shaqeynaysa marka wan la kulan marmada madaxweynaha runtii khayr Allah siiyo waxay wadaa dhakhtar caruur dadka caruurta yar agoonta iyo dhakhtar caruurta bay wadaa in wasiirada dhan la kulanay baarlamaanka waan la kulanay nin walibana way nagala qayb qaadanaya adigana waxaanu ka doonaynaa cali waxaanu imika ka dhif sameynay waxaanu sameynay partnership aanu sameynay ururada caafimaadka dhakhtarka caafimaadka ee Wales oo dhammaan ku xidhanay maadaama aad uga fara dhuudhuuban tahay ama qolooyinkiina wax laga inaad cidda wax caawisa workshop aanu sameynaa waanu daawadsanaa ajiradan ku soo dirnaa iyadoo Ingiriis ku qoran oo turjuman deetana ilaa maka ilaa gadar ilaa Belgium baanu xataa applicationadii ka fahelay oo insha Allah wadnaa nimanba waxay noo ballan qaadeen inay dawadana bixiyaan marka dadkana aynu la joogno aynu ka faa'iideysano